madaxda maamulka gobolka Togdheer ayaa maanta si wada jir ah uga hadlay raashin kaalmo ay toddobaadkan gudihiisa boqortooyada wadanka Cumaan soo gaarsiisay magaalada Burco kaasi oo lagu rogay goobahan horey loo ogeyn. gudoomiyaha gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliiska Burco iyo waliba xildhibaanada golaha deegaanka ee Burco qaar kamid ah oo maanta si wada jir ah shirjiraayad ugu qabtay goob qaar oo ku yaala xaafadda Faarax Omar ee magaalada Burco oo laga rarayay raashinkaasi xilligaasi oo horey loogu dajiyay 5 casho ka hor ayaa waxay cadeeyeen in raashinkan loogu tala galay degmada Badhan ee gobolka Sanaag isla markaana si ku meel gaar ah loogu rogay baqaaradaasi shacabka. gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Ayir oo ka hadlayay deeqdaasi ayaa waxa uu xusay in deeqdaasi oo dhammayd 2 baabuur oo midkiiba yahay 24 tan ay xafiiska madaxtooyada samafalka ugu tala galeen degmada Badhan balse ay mas'uuliyiinta Badhan ee qaadayay deeqdaasi ay horey uga daahday inay si degdeg ah u gudbiyaan. gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Ayir ayaa waxa uu beeniyay in aanay jirin buu yiri raatuhuna oo soo galay raashinkaasi in la leexsaday balse ay xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolkuba ka warhayeen tirada iyo meesha lagu wado raashinkaas. waxaan leeyahay dadka reer Burco raashin la nuusaday ama cid kale ahayd ama Burco loogu tala galay qaybta halkan taala ma aha Burco wixii loogu tala galay sidii taliyaha booliisku uu ka hadlay shantii goobood ee loogu tala galay shantaba waa la geeyay ilaahay cidii uu xalaf uga dhigay uu baana xalaf u yeelatay. raashinkana maanta laga rarayay goobtaasi oo gaaraya ilaa iyo 50 tan oo isugu jira noocyo kala duwan ayaa waxa uu dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ka abuuray magaalada Burco jawi shaki leh oo la tuunsan yahay in ay si dadban loo leexsaday deeqdaasi. taliyaha qaybta booliiska Burco ee gobolka Togdheer Salmaan Ducaale oo baxda dhagacad oo isaguna goobtaasi ka cadeeyay in ciidanka booliisku ay ka qayb qaateen qaybinta raashinka goobi hore loo geeyay magaalada Burco oo isagu ku tala bixiyay in raashinkaasi loo waday degmada Badhan lagu rogo taliska qaybta balse ay baabuurtii iyo dadkii mas'uulka ka ahaasi ku rogeen baqaaradaasi shacabka. gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Axmed Cabdi Jaamac Falay iyo waliba Cabdirasaaq Axmed Jaamac oo isaguna kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco oo iyaguna maanta goobtaasi raashinkaasi laga rogay kaga qayb qaatay shirkaasi jaraa'id ee lagu qabtay ayaa waxay cadeeyeen inay xaqiijiyaan raashinkan inuu u socday degmada Badhan ee gobolka Sanaag aanayna jirin bay yiraahdeen wax la leexsaday oo ku jiray deeqdaasi iyadoo mas'uulka deeqdaasi u gudbin doona degmada Badhan Cabdirasaaq Dhoore oo isaguna goobtaasi ballanqaad ka sameeyay in ay deeqdaasi tisoosa u gaari doonto dadkii loogu tala galay. deeqdan ayaa waxa muddo 5 cisho laga joogo soo gaarsiiyay magaalada Burco ururo wadaniga iyo boqortooyada Cumaan iyadoo maalintii shalayna deeqdan dhigeeda la geeyay gobolka Marojeex xilkii laga qaaday gudoomiyihii gobolka Marojeex agaasimihii guud ee wasaaradda dibujinta iyo waliba la taliyihii madaxweyne ku-xigeenka kadib markii lagu eedeeyay arrimo musuqmaasuq. Yusuf Ibrahim Warsame Burco.